markale isku soo noqod wanaagsan halkani waa Zack Films fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar sidoo kalena muuqaalka like saar filimkeena maanta waa filim qisad dhab ah oo ka dhacda dalka Russia waana askarigii ugu da'da yaraa taariikhda caalamka filimkeena ayaa ku furmaya dalka Russia halkaasoo qoys ka kooban 3 ay fadhiyaan webiga jinkiisa iyagoo waqti qurux badan wada qaadanaya kan ugu yar oo lagu magacaabo Sergey Alyashkov ayaa ugu faanayay walaalkiisa ka weyn inuu fuulay qaybta sare ee geedka isla markaasoo diyaarad dagaal oo Jarmal ay soo muuqatay hooyada ayaana carruurteeda u sheegtay inay isku qariyaan duurka balse canugii 6 jirka ahaa ayaa u muuqda mid aan cabsanaynin isagoona waraf ku garaacay diyaaradii nasiib wanaag wuxuu la yeelay diyaaradda taasoona qaraxday isla markuuna soo eegay dhulka wuxuu arkay in qoyskiisu carareen kadib Sergey ayaa ka soo kacay riyo cabsi ah isagoona hooyadiisa u yeerayay intaa kadib qof ayaa soo garaacay guriga isagoona u maleeyay inay tahay hooyadiisa si dhaqsi leh ayuuna ugu furay balse islaantii dariska ayaa u soo gashay iyadoona xasan waxayna ku wargelisay in hooyadiisa iyo walaalkiisa ay dhinteen wiilkii yar ma ahan mid fahmaya waxa ay islaantu sheegayso isagoona rabay in uu joogo guriga si uu hooyadiisa u sugo islaanta ayaa u sheegtay in Jarmalka ay soo weerareen sidaas awgeedna ay baxsadaan intaa kadib askari ayaa soo istaagay daaqada guriga isagoona la hadlay islaantii ayaa Sergey ka saartay daaqada nasiib darro waa la toogtay inta aysan bixin ka hor canugii 6 jirka ahaa hadda waa kaligiisa isagoo bilaa qoys ah intuu cararayay wuxuu arkay dhammaan guryihii dariska la ahaa oo la gubay isagoona cod dheer ugu yeeray hooyadiisa wuxuu xaaladan kala siman yahay carruur badan oo Soomaaliya ilaahu nabad warto nasiib aamiin isagoona intaa kadib keynta ku cararay markuu xoogaa ordayay wuxuu istaagay keynta dhexdeeda isagoona markale hooyadiisa u yeeray habeenkii wuxuu seexday keynta subaxii waxaan arkaynaa isagoo biyo ka cabaya keynta ciidamada cadowga oo luuqad kale ku hadlaya ayaa soo agmaray Sergey oo ogaaday inay halis ku yihiin ayaa isku qariyay xididada waaweyn ee geedaha wuxuuna naxay markuu arkay mas agtiisa socda laakiin wax dhaqaaq ah iyo wax cod ah ma uusan samaynin Sergey wuxuu ka baqayay askarta in ka badan intuu maska ka baqayo askarta ayaana cunto ku cuntay meesha iyagoona sii dhaqaajiyay Sergey ayaa u soo cararay hambadoodii si kastaba qorax dhicii canugii yara ayaa daalay maadaama wax cunto ah uusan helin 2 maalmood isagoona socday socod aan dhammaad lahayn laakiin ma joojin socodkiisa wuxuuna helay xoogaa miro ah isla markiiba qarax weyn ayaa ka dhacay gadaashiisa canugii yara ayaana wareeray isagoona suuraystay in qof gadaashiisa soo socdo xitaa xaaladaasi adag wuxuu u istaagay si geesinimo leh isagoona u sheegay qofka inuu haysto ul uusanna ka baqaynin laakiin wuxuu u dhacay si miyir la'aan ah isagoona hurda waxaa u timid askar iyagoona la hadlay muuqaalka ayaana intaa kadib isku rogayay saldhigga askarta Russia halkaasoo hogaamiyay Kuznetsov uu ka sugaya askartiisa shidaal waxayna la soo noqdeen canug yar oo dhaawaca kaasoona daciif ah iyagoo u sheegay inay isaga la jiraan markaasuu canugii yaraa isbaray iyagoona ku qoslay markuu gacanta u soo taagay sidoo kalena ka codsaday inay isbartaan askarta ayaa jeclaysatay canuga yar iyagoona biyo iyo cuntaba siiyay hogaamiyaha ayaa u keenay Dr. Katya waxayna ka xirtay dhaawaca halka Sergey ka codsaday in ay ku sawirto dhaawaciisa fuusto sababtoo ah wuxuu rabaa inuu noqdo askari markuu weynaado askarta dhaawacneed ayaa la sheekaysatay canuga ayaa ka helay hogaamiyaha baskooladiisa iyo welibana dufcadiisa hogaamiyaha ayaana ugu jawaabay dhammaan su'aalihiisa wuxuuna u ogolaaday inuu ku ciyaaro baskoolada isagoona ka saaray rasaasta Sergey ayaa tusay fuustada caloosha looga sawiray canuga ayaa si dhaqsi leh u bogsaday Katya ayaana ka codsatay inuu la joogo guutada balse uu ka diiday isagoo ku andacooday inaysan ammaan ahayn wuxuuna rabaa inuu u diro xarunta agoomaha askarta ayaa waqtigooda fasaxa ah ku bixiyo Sergey maalinkii kuwa badan ayaa u yimaada iyagoona u keena cunto maalin ayuu askari u tagay hogaamiyaha isagoona ka codsaday inuu u ogolaaday in canuga guutada la joogo askarta ayaana la qabsatay canuga sidii inuu yahay canugooda oo kale joogitaankiisa ayaa dareenkooda la wareegi doono hogaamiyaha ayaa gaaray go'aan aan ka noqosho lahayn si uu canuga ugu diro xarunta agoomaha ammaanqabkiisa awgeed maalinkii xigay waxaa soo weeraray cadowga askar badan ayaana dhaawacmay askari ayaana u yimid si uu ugu qaado xarunta agoomaha hogaamiyaha ayaa canuga la sheekaystay isagoona siiyey baskoolad geed ka samaysan canugii yara ayaa hab siiyey isagoona iska dhigaya inuu u cabsanayo xaaladda hogaamiyaha ayaana diiqadooday dib habsiintii Sergey maskaxdiisa ayaana isbedeshay isagoona Sergey ka codsaday inuu la joogo habeenkaasi askarta ayaa raadinaysay darees la-eg waxayna una mid ahayd wax waliba inuu la joogo Sergey hogaamiyaha ayaa dharkii u geeyay Sergey isagoona soo xirtay wuxuuna ku dhex ordayay goobta askarta kale ayaa ugu yeeraysay dagaalyahankii yaraa sidii u cararayay Jarmalka ayaa kusoo weeraray diyaarado dagaal askarta ayaa isla markiiba ula carartay goob ammaan ah iyagoona difaac galay askarta dhaawaca ah ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhaysay Sergey ayaa ku fikiray inuu caawiyo isagoona askarta u geeyay biyo mid ka mid ah ayaa ka codsaday inuu akhriyo warqadda ay qoyskiisa usoo direen maadaama faashad kaga xirnayd indhaha canugii yaraa ayaa rabay inuu caawiyo laakiin ma ahan mid wax akhrin karay wuxuuna ka qaaday
warqadda sidoo kalena wuxuu u akhriyay wax aan jirin si ay niyadiisu u degto isagoona mid kasta ugu akhriyay sidii midkii hore. dhinaca kale waxaan arkaynaa Katya iyo hogaamiyaha oo wada sheekaysanaya waxayna u muuqataa inay iska heleen balse iskuma sheegan dareenkooda. intaa kadib canugii yara ayaa u sheegay hogaamiyaha in meel looga habeeyey saldhigga waxayna arkeen askari ku dhintay weerarka. hogaamiyaha ayaa baray inuu iska saaro koofiyadda xushmadna u muujiyo askarigii dhintay. maalinkii xigay wuxuu hogaamiyaha ka codsaday in shaqo loo yeelo waxaana la siiyey boorso si uu askarta u siiyo waraaqadaha loo soo diray wuxuuna si dhaqsi leh u dhammaystay shaqadiisii isagoona askarta la ciyaaray. maalinkii xigay Sergio ayaa wax yar kala fogaaday saldhigga digaagadiisa. intuu la ciyaarayay wuxuu arkay lug ka dhaqdhaqaaqaysa buur ku taalay keynta isagoona dib ugu noqday saldhigga. askarta ayuuna u sheegay wuxuu kusoo arkay iyagoona shakiyey waxayna soo dabagaleen canugii iyagoona markay soo gaareen buurta qabteen 2 askari oo Jarmal ah. jaajuusiintii ayaa la xiray halka canugii lagu ammaanay caqligiisa. habeenkii hogaamiyaha ayaa tusay warqadda sharciga wuxuuna hadda si rasmi ah u noqday aabba cunugiisa. Sergio ayaa og jaceylku u qabo Katya si uu ugu gudo abaalkiisa isagoona u soo kaxeeyey si uu ugu qarto jaceylkiisa. laakiin waxay arkeen iyadoo la hadlaysa rag kale waxayna u qaateen inay qof kale jeceshahay. Jarmalka ayaana mar kale soo weeraray. Sergio ayaa markan ku caawiyey dhammaan awoodiisa isagoona u soo goray rasaas badan askarta joogtay furinta dagaalka. askarta ayaana ku amray inuu si dhaqsi leh u noqdo maadaama halis tahay goobtu. markuu tegay teendhada wuxuu arkay hogaamiyaha iyo askar kale oo naxsan sababtoo ah isgaarsiinta ayaan shaqaynaynin. askari ayaana loo diray si uu u hagaajiyo xarkaha go'ay. Sergio ayaa daba raacay askarigii ayaana si xun u dhaawacmay isagoona weydiiyey siduu u hagaajin karo xarkaha isagoona isku xirxiray. isgaarsiintii ayaana dib u soo noqotay iyagoona gargaar dalbaday. canugii yara ayaana badbaado u noqday qof waliba. waxaana arkaynaa hogaamiyaha iyo Katya oo ka wada hadlaya cirifka webiga isagoona ugu dambeyntii u qirtay jaceylkiisa sidoo kalena ka dalbaday inay hooyo u noqoto Sergio. ka hor inta aysan u jawaabin askari ayaa kasoo dhexgalay isagoona u sheegay in laga bedelay saldhigga. maalinkii xigay askarta ayaa u socotay saldhigooda cusub. siday u socdeen waxay soo galeen goob miino badan taasoona ku qaraxday mid ka mid ah gawaaridooda. hogaamiyaha ayaa dhaawacmay halka askarigii u dhowaa Sergio uu dhintay isagoona ooyey wuxuuna habsiiyey hogaamiyaha. waxay xambaarteen dadkii ka dhaawacmay iyagoona safarkii sii watay. markay gaareen saldhiggii cusba waxay la kulmeen taliyaha weyn oo lagu magacaabo General wuxuuna la yaaban yahay canugan caqliga badan isagoona ugu hambaliyey hogaamiyaha inuu haysto cunug sidan u caqli badan. maalinkii xigay waxaa lagu abaalmariyey difaaca markaasoo Sergio ballan qaaday inuu dalkiisa difaaci doono. generaalka ayaa ku wareejiyey difacadiisa. habeen ayaana lasoo weeraray saldhigga hogaamiyaha ayaana ku dhintay qaraxa. Sergio ayaa u ooyayay aabihiisa isagoona u yeeray askarta kale kuwaasoo hogaamiyaha ka soo saaray goobta. maalinkii xigay wuxuu u tegay hogaamiyaha gacmaha ayuuna ka dhaawacmay markuu isku dayayay inuu badbaadiyo. canugii yara ayaa hadda ka mid noqday askarta mana haysto qoys aan iyaga ahayn isagoona la tegay meel walba oo ay tagaan. filimka ayaana kusoo dhammaanaya askarta oo u wareegtay saldhig kale. codka ka dambeeya ayaana muujinaya inuu ka qayb qaatay dagaalkii Stalingrad isagoona la tegay askarta dalka Poland. waxaa loo aqoonsaday inuu yahay askariga ugu da'da yar abid wuxuuna ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka. sidani ayaa ka dhacday dalka Russia 1915. waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa inaad soo gaartay dhammaadka muuqaalkan. haddii aad jeclaysatay qisooyinka dhabka ah oo sidan oo kale ah waxaan kaa codsanayaa inaad nagula wadaagto dhanka faallada haddii aad jeclaysatay inaan kula soo wadaagno qaybo badan. sidoo kale ha iloobin inaad muuqaalka like saarto si uu u gaaro dad badan. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaaga tegaa sidaasi nabadgelyo.